بسم الله الرحمن الرحيم ومحسنتين كلن كان وحو ahaa oo ku saabsanaa ama kamid ahaa kulamada joogtada ah diblomaasiyiinta iyo beesha caalamka dalka joogta aan la qaadano gaar ahaan marka laga hadlayo horumarinta iyo wax soo saarka kalluumeysiga dhaqaalaha buluuga dalka runtii safiirka dowladda Talyaaniga oo aan si wax badan wadaagno oo saaxiibtinimo xoog leh naga dhaxayso waxaanu ka wada shaqeynaa mashaariic cusub oo dhowr ah oo rajeynayna insha Allah in kor loogu qaado joogteynta iyo horumarinta iyo kor u qaadista wax soo saarka kalluumeysiga dalka saad ogsoontihiin waxaanu hore wada sameynay anagoo oo FAO marayna mashruuc programkii ahaa master plan-kii 10 sano ah oo hay'ad Talyaani ay nala waday haddana waxaan isla wadnaa mashaariic kaleeto oo pilot project ah oo u talagalnay bulshada nugul xeebaha degan inay ku bartaan kalluunka iyo sidii uga faa'iideysan lahayn dhaqaale ahaan waxaan maanta ku faraxsanahay inaan ka sheego kalluunka dhoofa Soomaaliya oo 2025 oo mitirtan sanadkii lagu qiyaas jiray inuu hadda maray 250 iyo 9,000 oo mitirtan wax ka badan taas oo runtii cadeynaysa in ganacsatada iyo dadka Soomaaliyeed u soo jeesteen inay ka faa'iideystaan kor u qaadista dhoofka iyo horumarinta kalluunka dalka ayagoo raacaya tilmaamaha iyo guidance-ga wasaaradda kalluumeysiga dhaqaalaha buluuga ay bixisay iyagoo maaragtay tixgelinaya horumarka guud ee dalka ka socdo iyo joogteynta barnaamijka horumarinta national transformation plan-ka ama barnaamijka horumarinta dalka lagu horumarinayo wax soo saarkiisa iyo maxay ahayto karaankiisa guud ahaan dalka dhan oo isbedel qorshaha isbedelka qaranka oo aan leeyahay runtii wuxuu ahaa qorsho xilligiisa yimid loo baahnaa xukuumaddana waqti badan iyo caqli badan iyo xoog badan iyo dhaqaale badan ka galay laakiin aan dhihi karo runtii waa qorshayaasha lagu faani karo ee dhaxalgalka ah dowladda Soomaaliya ay hirgelisay mashruuca kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga dalka wuxuu ka mid yahay mashaariicda ugu xoog badan oo aan filayna insha Allah in hadda wixii ka dambeeyay miro dhalkiisa dadka Soomaaliyeed ay taagan yihiin ka faa'iido doonaan aad u mahadsantiin